Sheekh Maxamed Saciid Saawir oo ka mid ah culimada waaweyn ee magaalada Boorama ayaa khudbadii Jimcaha ee Masjid Huda ee magaalada Boorama kaga hadlay ahmiyadda ay xambaarsan tahay nabaddu waxaanu sidoo kale uu fariin u diray Suldaan Abubakar Cilmi Wabar magaaladeenan maalmahan u dambeysay dadku xoga cabsi bay dareemaan moogta oo wad iska jirto wax iska jira weeyaan anu mid baan leeyahay moogta Suldaan Wabar waa suldaan reer Boorama ah fariin baan u diraynaa fariinta aan u diray waxa weeye waa suldaankii jecelaynay aan dooranay waan ku duceynaynaa inaad soo noqoto oo ummadaada u kaalaydo ummadii ku dooratay ilaha kaga tagin suldaankii keligii baxayna ha noqonin haday jabhada bixi jireen jabhada bixi jiray suldaan ma bixi jirin suldaankii keligii baxayna ha noqonin taariikhda galid waan ku jecelahay bulshadii ku dooratay baan ahayn arintii aan ku dooranay u soo noqo waan ku duceynaynaa waa dhaxan ninka tagay baadiyaha ka baadiyaha tagay waayo de wax rasuul maaha rasuushu un baa ku qasban inay buuraha galaan oo ummadda hogaamiyaan moogta gada bursoo dhan ma horan kartid dadkana waa dad tashay u baahan yihiin ilaahay risaalo kuma diin rasuulka ama dhigin waxaan leenahay suldaanka Wabar oo suldaanka ha dooran oo jeclayna suldaan Abubakar Cilmi Wabar waan ku duceynaynaa ilaahay baan kugu dhaarinay dadku way ku jecel yihiin war soo noqo hana cabsi gelinine war magaalada kaalay mugta daladu waa barwaaqo sidoo kale Sheekh Saawir oo ah gudoomiyaha maxkamadda racfaanka ee gobolka Awdal ayaa bulshada ugu baaqay in laga wada qayb qaato caawinta bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Beledweyne isla markaasina dhibaatadu ay ka soo gaadhay fatahaadda uu saameeyay webiga Shabeelle ee gobolka Hiiraan adduunyada masiibo markay dhacdo gaal iyo muslimba waa la iscaawiyaa Soomaa atacaawunku waa wax ka dhaxeeya wa tacaawunu cala birri wa taqwa war nimanka kale jaarka aan hayna ee Beledweyne war ka qayb gala oo caawiya oo siyaasad ma aha moogta in la iscaawiyo kuma jirto muxuu ahaa wax taas waa gaar waa wax madax banaan in la iscaawiyo oo ummadda loo gurmado oo qof wixii dareen shucuur islaami oo diro war wixii aad ku dareysana muxuu dadkana u dira ilaahayna dambigeena ha dhaaf ummadana waa ummad khayr leh adduunkana waxa isku wada xidhayo markaad waxa dhacay aragto qofkii damiirlii u naxaya horta qodob mid kale adduunka si badan baa la isku caawiyaa ilayne inta laga qayb galo muxuu tacaawunka muxuu waxa la caawinayo ummadda dhibaatada ku dhacday ee walaalahina masiibada ku dhacday koba mid bay ku dhacdaa xitaa inaga waxa qurbayntu qorayeen waxa soo socda la duufan ba soo socda la taasi waa rajman bil ghaib ilaahay baan ka baryanaa inuu naga badbaadiyo amiin dhahada duufan ilaahay naga badbaadiyo laakiin waa waxyaabo badan oo la sii sheegay baa jira Cabdirasaaq Umar Micad Awliyo telefishinka codka bariga Afrika Boorama